sidee ayuu ku yimiday magaca awdal ee gobolka awdal qarnigii toddobaad ayay ahayd markii diinteena suubana islaamku ay qaaradda Afrika ka soo gashay magaalada qadiimiga ah ee Saylac markaasi oo xeebahaasi ay ka soo degeen saxaabadii ugu horeysay ee u soo hijrootay dhulka Xabashida balse wixii intaasi ka dambeeyay magaalada Saylac waxa ka soo taliyay boqortooyooyin islaam ah kuwaasi oo xadaaradoodu ku fogaatay inta badan qaaradda Afrika ilbaxnimooyinkaasi waxa ka mid ahayd saldaladii facaweyneed ee Adal Empire oo ku dhawaad muddo 2 qarni ah ka soo talinaysay dhulka Soomaalida waqooyi galbeed Djibouti Eritrea iyo qaybo ka mid ah deegaanada galbeedka dalkaasi Ethiopia saldaladii Adal ayaa waxa la aasaasay horaantii qarnigii 15aad markii ay taariikhdu ahayd 1415 markaasi oo qoyskii ka hadhay Sultan Sacaadadiin ay ka soo noqdeen dhinacaas iyo dhulka Yemen ilma Sacaadadiin ayaa markii hore u baxsaday dalkaasi Yemen kadib markii boqortooyadii Abyssinia ay ka talini jirtay dhulka Xabashidu ay dagaal ku qabsatay guud ahaanba boqortooyadii kale ee Ifat oo ay halkaasi ku dishay aabahood Sultan Sacaadadiin Cabdulmuhammad oo haatan ku aasan jasiiradda isaga loogu magac daray ee Sacaadadiin markaasi oo ay taariikhdu ahayd sanadkii 1403 kadib markii muddo 10 sano ah laga joogay burburkii boqortooyadii Ifat oo ay magaalada Saylac ku soo noqdeen ilma Sacaadadiin ayaa mar kale halkaasi laga aasaasay maamul cusub boqortooyadani waxa loogu magac daray Cadal oo asal ahaan ka timiday kelmadda Carabiga ah ee cadli oo macnaheedu yahay cadaaladda magacani cusub ee saldaladda Cadal oo lagu qoray luqadaha Carabiga iyo Ingiriisiga ayaa loogu dhawaaqi jiray dhowr siiqadood kuwaasi oo kala ahaa cadli Cadal Adal iyo Awdal Adal kelmaddu waa cayn iyo daal iyo laam taariikhda marka dib loogu noqdo dadka wax ka qoray qaarkood waxay qorayaan Carabiga marka laga hadlayo cadli bay qorayaan cadli ama Cadal iskolba sida loo akhriyo qaar caadil bay qorayaan qaar awdal bay qorayaan qaar awdali bay qorayaan intaas buugta taariikhda oo ku arkaysaa halkaasi ayaana laga soo dhiraandhiriyay ama laga soo xigtay magaca Awdal markii dawladii dhexe ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday gobolka sanadkii 1984 waxaana xusid mudan in magaala madaxda gobolka xilligaasi loogu wanqalay degmada Baki taasi oo dadka qaar ay noo sheegeen in siyaasadii dawladii militariga ay qayb ka ahayd in caasimadaha gobolada laga fogeeyo magaalooyinka saaran xuduudaha wadamada dariska ah gobolka Awdal oo haatan ka tirsan Somaliland ayaa gobol ahaan xal la wadaaga gobolada Maroodi Jeex iyo Saaxil juqraafi ahaan dhinaca waqooyi galbeed ilaa iyo koonfur galbeed waxa uu xal la wadaaga wadamada Ethiopia iyo Djibouti halka uu dhinaca waqooyina ka kulaalo gacanka cadmeed